wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Naasir Caydiid ayaa ugu digay ajaanibka ku sugan gudaha Somaliland inaanay dalka gudihiisa ku qabanin shirarka jaraa'id iyo kulamada siyaasiga ah. Shirkan jaraa'id uu ku qabtay magaalada Hargeysa wuxuu ku faray inay dadka ajaanibka ogol yihiin inay si xor ugu noolaadaan dalka balse aanay ka aqbali doonin kicin iyo falilid ku ah arrimaha siyaasadda. xalay waxa arkayseen maalmahan dadka hadlaya warbaahinta dalka gudihiisa ka soo gasha oo dad maxay ahaydey ama qaxoontinimada ku joogan ama ku joogan si kale ku yimaadaan dadka ajnabiga oo jooga. marka halkan waxaan uga sheegayaa dadka ajnabiga horta oo digniin ka siinaya qof ajnabiga oo dalka Soomaaliland gudaheeda cid siyaasad kaga hadli kara ama media soo istaagi kara ma jiro. dadka magangeliyan u siinay si nabadgeliyaan ay uga shaqaystaan oo ay u joogan laakiin uma aan siinin inay ku dagaal ka dhaxburaan mucaarid ma ka dhaxsameeyaan inta hore shalay ama xalay ma dhacmay ma hore dhacday wax la oranayaa digniin baan uga dhigaynaa laakiin marka xigta qof ajnabi lagu qabto isaga oo ka hadlaya meel media ama meel shir ama abaabul ka dhaxwada dalka gudihiisa ma dul qaadanayno mana aqbalayno. waxaan uga digaynaa inay qof kasta oo ajnabi uu si caadi isaga shaqaysto dadka wala noolaado wadankan inuu foodo ka abuuro ugumanaan ogolaanin qofka imka qaar bal sheegay shirariye wax ka shaqeynayaan waxaan ballan qaadanay in shirkaas haday isku yimaadaan rasmi noqoto aan ka qaadano talaabo sharci ah oo waafaqsan oo ajnabiga khusaysa ama qalqalgelin dalkan oo magangeliyo u joogan maxay ay waajibaadka aan xaq ugu leenahay ka mari doonaa. marka waxaan uga digaynaa anagu imka cidna oran ma hebel iyo hebel waan wada garanaa magacyadooda waan wada haynaa wax meesha ka shaqeeyaan baan haynaa cid yihiin baan garanaa kuwa kale la midkaaba ama Ethiopian ha noqdaan ama Oromo ha noqdaan ama Ethiopian oo dhan ha noqdaan ama ajnabi kale ha noqdaan cid kasta oo ajnabi oo dalka Soomaaliland joogto waxaanu faraynaa in ay si nabadgelyo u joogaan una shaqaystaan uga ganacsadaan xor iyo xalaal baan u siinay laakiin wax kale inay si galaan lama ogolaanayo. Ismaan Axmed Ismaan Sabti Hargeysa.